Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kusoo dhowow FN Academy waa anigii ahaa walaalkeenii Taamir Maxamed sidaa wad ognahay waxaan kusoo guda jirnay kooriskii ahaa barashada softwareka Adobe Photoshop kooriskaas waxaan hore ugu soo qaadanay 5 cashir oo ka mid ah kooriskaas kanna waa cashirkii lixaad ee kooriska barashada Adobe Photoshop kusoo dhowow cashirkeenii maanta sida wad ognahay cashirkeenii hore waxaan ku soo baranay markaa sida loo sameeyo ID card cashirkeena maantana waxaan ku baranaynaa markaa sida loo sameeyo sawirkan hortaada ka muuqdo si aan u sameyno sawirkan ugu horeyn waxaan u baahannahay markaa labo file mid ka mid ah fileka waa midka kalena wuxuu igu jiraa markaa gudaha laptopkayga si aan sawirka usoo gashto Photoshop waxaan adeegsan karaa wadooyin kala duwan inaan aado file kadib aan dhaho markaa open sida arkays wuxuu igeenayaa markaa laptopkayga gudihiisa kadib waxaan raadinayaa markaa qaybta oo sawirkayga yaalo markii aan aado markaa qaybta uu sawirkayga yaalo kadib waxaan soo dooranayaa markaa sawirkan u baahanahay then waxaan leeyahay open aan ku tuso markaa qaabka kale ee sawirka halkan aad soo gelin kartid ugu horeyn waxaad aadaysaa markaa file explorerka kadib waxaad aadaysaa meesha uu sawirka ku yaalo sida arkaysa sawirkii haddeertaan waa kan sawirkan si aan u geeyo photoshopka waxaan qabanayaa markaa sawirka anigoo sameynaya drag and drop wax lagu magacaabo sawirka dushiisa ayaan aadayaa kadib waxaan qabanayaa kiligta ama lift kiligta anigoo hay lift kiligta aanan ka faqin ayaan sawirkii soo jiidayaa kadib waxaan imaanayaa taskbarka waxaan raadinayaa photoshop then markuu i keeno gudaha photoshopkana sawirkaygii halkan ayaa markaa copy ku leeyahay sida arkaysidna qaabkan waa soo gashan kartaa sawirka oo waa kana sawirkii haddeertaan ugu horeyn tallaabada koowaad aan qaadayna waxay tahay in sawirkan aan ka jarno backgroundigan gadaale si aan sawirkan ugu jarno backgroundigan waxaan isticmaalaynaa toolkan aad arkaysid toolkan waxaa lagu magacaabaa markaa selection tool ama waxaa lagu magacaabaa quick selection tool quick selection toolka marka waxaan ku jaran karnaa backgroundiga si aan backgroundiga ugu jarno waxaan ka maamulaynaa qaybtan kore aad arkaysid halkan ugu horeyn sida tan ayuu kuu soo saarayaa then waxaa markaa calaamaysanaysaa meesha aad rabto oo sidaan ayaad wadwadaysaa aan ku baro marka qaybtan kale ee balasta ku qoran tahay qaybtan waxay kaa caawinaysaa inaad meeshan kusoo darsato selectionka aad arkaysay si aan ugu soo darsano ugu horeyn halkan ayaa click siinaya haddeertan sida arkaysa halahan yar ayuu selection inoo gelinayaa si aan u ballaarin haddana koortiis ayaan click siinaynaa saas ayaa ku wadaysaa marka waxaad taabsanaysaa meeshaad u baahan tahay in lagu calaamay hadba marka meeshan aan click kusii haddeertaan sida arkaysa wuxuu calaamadanayaa intaan oo idil haddana halkan aan imaado kadib click aan dhaho sida arkaysa wuxuu calaamadeynayaa qaybtan kale haddana hoos markaa click ku dhahana wuxuu calaamadeynayaa asna qaybtan kale haddeertaan sidan waxaan ku selection gareynay markaa sawirkeeni marka waxaa jiro meel aan qalad ku galnay sida arkaysa meeshan tinti ayuu markaa gudaha soo geliyay oo selectionka gudaha ayuu ku jiraa aan dhahno control plus si aan si waadax ugu aragno sida arkaysa haddeertaan sawirkii zoom ayaan soo dhahanay oo waxaan taabanay control plus ama waxaad isticmaali kartaa meeshan toolkan aad arkaysid toolkan waxaa lagu magacaabaa markaa zoom tool oo waxaad ku samayn kartaa dad menis doorato inuu markaa sawirka gadaal kaaga bixiyo haddii aad plus doorato markaa sawirka inuu hoosta kaa soo geliyo markaa si waadix aad u aragto haddeertaan sida arkaysa markaa halkan gudaha ayuu soo geliyey halkan sidoo kale gudaha ayuu soo geliyey si aan banaanka u geyno waxaan ku laabanaynaa quick selection toolka then markaa halkan ayaan badshanaynaa oo haddeertaan wuxuu inoo saaran yahay plus waxaan ka dhigaynaa menis marka menistaas taabano kadib sida arkaysid wuu weyn yahay aad ayuu u weyn yahay markaa selection toolka si aan u yaraysan waxaan furaynaa fladan yar then markaa halkan ay saas ku qoran tahay ayaan soo yaraynaynaa markaan soo yarayna kadib sida arkaysa haddeertaan wuu soo yaraaday hadda waxaan isku dayayaa marka inaan banaanka bixiyo meelaan uu gudaha soo geliyey si aan banaanka u bixiyo halkan ayaa geynayaa muuska then waxaa taabanayaa click sida arkaysa wuu sikiyey qaybtan kalena sidoo kale waxaan leeyahay click wuu sikinaya asna sida arkaysid meeshaan asna markaa waxaa leeyahay click haddeertaan sida arkaysid wixii oo idil uu isla faciisiyey aan dhahna markaa control menis sida arkaysa haddeertaan sawirkii oo idil waxaan wada gelinay selectionkii si aan backgroundingan isaga jarno waxaan leenahay markaa right click then waxaan taabanaynaa cut haddeertaan sida arkaysa markaa sawirkii backgroundingii wuu kala jaray oo wuxuu ku dhigay laba qayb waxaan iska masaxaynaa qaybtan waxaan taabanaynaa markaa delete ka mid ah keyboardkeena ama waxaan taaban karnaa inaan sawirkan aan markaa soo qaadno kadib aan ku fasaxno meeshan yar aad arkaysid ee delete ku qoran tahay wuu baxayaa waxaad kale oo aad samayn kartaa inaad taabato keliya buttonkan delete kadibna aad dhahdo markaa iga delete sida arkaysa wuu baxaya asna qaabkaas haddeertaan wuxuu inoo sameeyey sawirkii laakiin waxaa la socda sawirkii weli background caddaan ah si aan backgroundingan caddaanka ugu reebno waxaan aadaynaa erase tool oo markaa halkaan aad arkaysid ah then waxaan leenahay right click kadib waxaan ka dooranaynaa magic erase tool markaan doorno magic erase tool halkan ayaan click ku siinaynaa si aad arkaysid si automatic ah sawirkii backgroundingii wuu ka jaray haddeertaan waxaan weynaysanaynaa markaa backgroundingan dambe si aan backgroundingan dambe u weynaysano waxaan aadaynaa markaa crop tool markaan aadno crop tool kadib wuxuu inoo soo saarayaa markaa dhinacyadan aad arkaysid si aan u weynaysano dhinacyadan ayaa kor u qaadaynaa dhinacan kalena waxaan bixinaynaa geeskan dhinacan kalena waxaan bixinaynaa markaa geeskan haddeertaan sida arkaysid wuu inoo weeriyey markaa backgroundingii
aan iska dhahno control menis. Hadda waxaan sameynaynaa marka inaan gudagalno hawshii. Ugu horreyn waxaan aadaynaa halkan aad arkaysid si aan background usoo sameysano. Kadib waxaan kasii dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay solid color. Kadib markaa kalarkan caddaanka ayaan iska taawanaynaa. Hadeertan wuxuu inoo sameynayaa sida arkaysid background. Sawirkii ayaa naga qarsamaayo sababtoo ah sawirkii wuxuu aaday hoos oo wuxuu jiraa backgroundiga hoostiisa. Si aan sawirkaas u keenno banaanka waxaan jiidaynaa markaa sawirka layerkiisa. Kadib waxaan geynaynaa qaybtan kore. Hadeertan sida arkaysid sawirkii wuxuu inoo soo maray qaybta kore. Waxaan gudugalaynaa markaa shaqadeyni. Hadeertan shaqada koowaad aan qabanayno waxay tahay inaan meeshan keensano sawirkii markaa buuraha. Si aan sawirkii buuraha halkan u keensano waxaan aadaynaa file. Kadib waxaan taabanaynaa meeshan ay ku qoran tahay markaa place linked. Markaan taabano place linked waxaan soo dooranaynaa sawirkii buuraha. Then sida arkaysid wuxuu inoo keenay hadeertan sawirkii markaa buuraha. Markii aan keensano sawirkan kadib waxaan gaabinaynaa iftiinka sawirkan si aan cabirka u saxano. Kadib waxaan taabanaynaa control T. Markii aan taabano control T kadib waxaa inoo soo baxaya markaa selectionkan aad arkaysid. Kadib waxaan selectionkan dushiisa ku leenahay markaa right click. Kadib waxaan taabanaynaa meeshan ay ku qoran tahay markaa flip horizontal. Hadeertan sida arkaysid sawirkii wuu inoo gadiyay. Markuu sawirka sida tan u gadiyay kadib waxaan taabanaynaa halkan tigta. Kadib waxaan soo qaadaynaa sawirkii qaybta markaa ay buurta sidan ka tahay ayaan ku aadinaynaa inta madaxan kore ah. Markii aan ku aadino kadib waxaan sameynaynaa markaa inaan sawirkan iftiinkiisii hore u soo celino aan geeyno 100%. Kadib waxaan sameynaynaa anagoo sawirkan dul joogno inaan qabano control. Kadib aan muuska keeno halkan. Markuu muuska sida tan isku bedelan aan dhaho markaa click. Hadeertan sida arkaysid halkan wuxuu ugu sameynayaa selection oo u eg wejiga markaa haweeneydii. Kadib waxaan taabanayaa halkan lagu magacaabo add mask. Markii aan taabto sida arkaysid sawirkii oo idil woo jaray wuxuuna ku ekeeyay markaa inta haweeneydan ay ahayd. Hadeertan waxaan aadaynaa qaybtan layerka. Kadib waxaan qabanaynaa alt si aan sawirkan u badino. Kadib waan jiidaynaa halkan ayaan geynaynaa. Sida arkaysid hadeertan sawirkii laba xaba ayuu noqday. Waxaan sameyn karaa qaab kale inaan markaa sawirkan dushiisa aan u joogo aan dhaho right click. Kadibna aan dhaho markaa duplicate layer. Waxaan leeyahay okay wuxuu inoo sameynayaa markaa sida arkaysid laba sawir. Midkan kore ayaan qaadaya halkan ayaan geynayaa. Waxaa jira qaab kale aan sameyn karo inaan dhaho markaa control J. Wuxuu inoo sameynayaa laba sawir. Kadib waan qaadaynaa haddana halkan ayaan geynaynaa. Saddexdaas qaab ayaad isticmaali kartaa midkii adiga kuu fudud. Markuu sida tan inoo sameeyay kadib waxaan sameynaynaa sawirkan inaan iftiinka u gaabino markaa. Iftiinkiisa waxaan geynaynaa markaa 50%. Then waxaan sameynayaa inaan dhaho mar kale add mask. Markii aan taabto add mask kadib waxaan imaanayaa halkan waan fiirinayaa markaa inuu qaybtan madow kor ii soo jiro. Markaan sidaas sameeyo kadib waxaan aadayaa markaa halkan aad arkaysid ee brush tool. Brush toolkan wuxuu qabtaa shaqooyin badan waan arkaynaa in badan. Markaan soo taabto brush tool kadib halkan ay ku qoran tahay flow aad waxaa ka dhiganaysaa 39. Kadib waxaan sameynayaa inaan brush toolka aan mariyo dhammaan markaa sawirkan markaa. Markaan sida tan aan sameyno kadib waxaan imaanaynaa halkan aad arkaysid. Markii aan halkan imaano kadib mar kale aan brush toolkii ku soo laabanaynaa. Kadib waxaan sameynaynaa inaan halkan aan marino. Halkan ayaan marinayaa oo wejiga kaliya ah. Sida arkaysid hadeertan marka wuxuu inoo sameynayaa wejigii oo clear ah. Waan wadayaa ilaad markaa is leedahay halahan ayaa kugu filan. Markii aad halahaas doorato kadib khalaas hadeertan sida arkaysid sawirkii waan sameynay. Kaliya waxaa inaga dhiman markaa inaan backgroundigan kalarka aan ka bedelno. Si aan backgroundigan kalarka aan ugu bedelno waxaan taabanaynaa halkan. Double click ayaan halkan ku siinaynaa. Kadib waxaa inoo soo furmaya daaqadan aad arkaysid. Markii uu daaqadan inoo soo furmo kadib waxaan aadaynaa halkan. Markuu inoo soo baxo qalinkan yarna waxaan dooranaynaa markaa halkan kalarkiisii. Sida arkaysid hadeertan backgroundiga kalarkiisa wuu inaga bedelay. Isku day aadna markaa inaad sameyso practical oo aad ku celceliso dhammaan waxyaalaha koorskan dhexdiisa aan ku isticmaalayno sawirada ama waxyaalahaas kaleba waxaan kuu soo dhigi doonaa markaa linkiga hoose. Si aad caawinaad u heshana markaa waxaad booqan kartaa linkiga hoose groupka kuu yaalo. Waxaa inoo balanaa markaa cashirkan kiisi xigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.